nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Maha Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isku haysta xil muhiim ah iyo Villa Soomaaliya oo degdeg u soo faragelisay walwal iyo cabsi soo wajahday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la ka baqaya in xilka si degdeg ah looga qaado xog iyo macluumaad dheeri ayaan arimahaas idinkaga haynaa halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa senator Muuse Suudi oo muddo xileedkiisu la Muuse Suudi Yalaxow oo muddo xalkiisu la oo markii ugu horeysay ka hadlay talaabo afgambi uu qaaday Saadaq John iyo beesha mudulood oo gogol ugu yeertay beesha Habargidir iyo halaagii shabaab abid la kulmo niisa oo shaacisay halka ay tageen al-shabaabkii ka cararay Basre iyo Hiiraan iyo shacabka Muqdisho oo wadnaha farta ku hayo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan sida ay xaqiijiyeen dadka agdhow agaasimaha Niisa Mahad Maxamed Salaad waxa uu ka hor yimid damaca Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ah ergeyga xafiiska gurmadka iyo abaaraha oo qaabilsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa diidan in shakhsi uu wata Cabdiraxmaan Cabdishakuur laga dhigo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo dhawaan la magacaabi doono agaasimaha Niisa waxa uu wataa qof gaar ah balse aan beeshiisa ahayn isaga iyo wasiiro dowlaha madaxtooyada qaranka Abshir Buqaari ayaa xusul duub waxay ugu jiraan in laga dhigo jagada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir qof ka soo jeeda magaalada Cadaadad gaar ahaan beesha reer Xaaji Saleemaan asaati Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa la rabaa in xilkaasi qof beeshiisa ka soo jeeda ceyr habar eji iyadoo hore Cali Yaro oo ka soo jeeda beesha ceyr ayaa la u magacawnaa Maha Salaadna sidaas ay isku jufo ahaayeen hardanka u dhaxeeya Mahad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa gaaray meel sare iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Mareykanka ku sugan uu sheegay in xaaladda la dejiyo una xaalad degdeg ah keeni doono sida muuqata Mahad iyo Abshir Buqaari ayaa loo ansixin doonaa xilkaasi qofka ay wataan maadaama Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu kaga dhow yahay madaxweyne ama kaga dhow yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waase la ogaan doonaa halka ay ku biyo shubtaan marka la eego gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Madaalo ay keensadeen Abshir Buqaari iyo Maha Salaad waxay dadka qaar ku tilmaameen in iyagu yihiin mulkiilayaasha dowladdan xilli sidoo kale ay taageero ka haystaan ra'iisul wasaare Xamse Bare oo isku fikir aaminsan yihiin saddexduba dhinaca kalena senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaan Saadaq Cumar Maxamed ku amaanay talaabadii uu kaga hor yimid muddo kororsigii uu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Muuse Suudi ayaa hadalkan ka jeediyay kulan ay beesha mudulood u qabatay beesha Habargidir si looga raali geliyo hadal gaf ah oo ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa mar uu ka qayb galay dooda BBC da xilligii dowladda Farmaajo ee sii dhamaanaysay waxa uu ku yiri afar nin oo dhuusamareeb ka yimid xoog kuma haysan karaan dowladda taasi oo loo arkayay inuu ku weerarayo beesha Habargidir Saadaq John waxa uu qaaday talaabo geesinimo leh isagoo ka tirsanaa dowladii Farmaajo oo waliba garaado ku taxan yihiin ayuu maalin cad ka hor yimid muddo kororsiga waxaana ahayd wax uu Allah waafajiyay iyo sharaf uu soo hooyatay ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow oo muddo kala laga laa warbaahinta isla markaana xilligan ka soo muuqday senatorka ayaa la sheegay in xaalkiisa uusan wanaagsaneyn isla markaana xaalad caafimaad oo markaasi aad u daran uu wajahayo Muuse Suudi ayaa sheegay inaysan jirin hadda wax ka maqan Saadaq John taas bedelkeedana uu hadda yahay xildhibaan sidoo kalena uu dib u helay garaadihiisa taasina ay tahay in looga mahad celiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Saadaq John waan is aragnay uu i weydiiyay ma iga filaysay inaan go'aankaasi qaadan doono waxaan ugu jawaabay nin rag ah shar iyo qeyr waa laga fishaa waxa qaaday go'aan saxan oo sharaf ku jirta ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow Muuse Suudi ayaa xusay inuu Saadaq ahaa furihii kacdoonka badbaado qaran taasina ay tahay mid mudan in looga mahad celiyo General Saadaq John ayaa noqday sargaalka kaliya ee ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ee ka hor yimid go'aanka uu baarlamaanka hore ee Soomaaliya ugu ogolaaday muddo kororsigii 2 sano ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kacdoonka uu bilaabay Saadaq John ay sidoo kalena qayb ka ahaayeen midowgii musharaxiinta mucaaradka ayaa keenay inuu fashilmo isku daygii Farmaajo waxaana markii dambe Saadaq uu u suurta gashay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya halka Farmaajo looga adkaaday doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho 15 May sanadkani
ugu dambeyntiina maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa gelinkii dambaha ee shalay dagaal culus kula wareegay deegaanka Daynuunay oo hoostaga magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. maleeshiyadan oo aad u hubeysnaa ayaa dhowr jiha ka weerartay markaasi xerada ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaankaasi, iyadoo dagaal culus kadibna ay u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan xeradaasi. ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay inay xerada soo baneeyeen kadib markii aanay wax gurmad ah ka helin dhinaca magaalada Baydhabo intii ay shabaabka iska caabinayeen. taliyaha hay'adda nabad sugidda ee degmada Baydhabo Maxamed Isaaq Ibraahim Aflow ayaa sheegay in shabaabku weeraray xerada Daynuunay ay yihiin kuwii dhowaan laga soo saaray qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo weliba deegaanka Basra ee duleedka magaalada Muqdisho. nimankan beesha soo weeraray waa cadowgii dagaalka looga saaray gobolka Hiiraan iyo deegaanka Basra oo labada shabeelle isku xirto, waana maleeshiyaad aad u tiro badan ayuu yiri taliyaha ayaa sidoo kale sheegay maleeshiyadan shalay gelinkii dambe ilaa saaka iyagoo gacanta ku haya deegaanka Daynuunay mana jirto wax gurmad oo gaaray ciidamadii xerada lagu weeraray. ciidamada xoogga dalka waxaan ku ammaanaynaa inay si fiican isaga caabiyaan cadowga, laakiin ma jirto cid markaasi haba yaraatee gurmad u dirtay ciidamadaasi. taliya Aflow ayaa tilmaamay in kooxaha argagixisada ay ka faa'iideysteen habacsanaanta ka jirta dhanka maamulka koonfur galbeed oo ku mashquulsan sida uu yiri arrimo siyaasadeed. cadowgu waxa uu ka faa'iideystay maamulka koonfur galbeed oo arrimo siyaasadeed ku mashquulsan. midda kale waxaan jirin wada shaqeyn toos oo ka dhaxaysa maamulka iyo shacabka, maxaa yeelay nimankan waxay soo saareen dhul dheer sidee ugu suurta gashay inay si fudud ku yimaadaan Daynuunay oo Baydhabo afkeeda ahi. dabcan shacabka ayaan ku kalsooneen maamulka ayuu yiri Masar Aflow. dagaalka al-shabaab ay kula wareegeen Daynuunay ayaa imaanaya maalmo kadib markii ciidanka xoogga dalka la sheegay inay dhaqdhaqaaq ka dhan ah mintidiinta ka bilaabeen gobolka Baay ee gobolka aan iraahday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. dhinaca kalena magaalada Muqdisho haddii aynu ku soo laabano waxaa sare loo qaaday amniga, iyadoo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliyana heegan buuxa la geliyay kadib markii la helay xogo amni oo sheegaya in shabaabku ay damacsan yihiin in weeraro ismiidaamin, dilal qorshaysan iyo kuwa toos ay ku soo qaadaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelo iyo weliba xarumo dowladeed iyo goobo dadka ay isugu yimaadaan oo ku yaala magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu arkayaa isgoosyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo si feejigan gaadiidka iyo dadweynaha u baaraya. laamaha ammaanka dowladda federaalka ayaa la sheegay inay doonayaan inay si markaasi feejigan ay kaga hortagaan weerarada shabaabku ay la damacsan yihiin magaalada Muqdisho. sidoo kale al-shabaab ayaa doonaya inay dilal qorshaysan ay ku ekeeyaan beelaha ama waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelaha qaarkood, kuwaas oo si adag ugula soo dagaalamay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo hay-adaha ammaankuna ay ka digeen arrintaasi islamarkaana loogu baaqay in si feejigan ay ula socdaan xaaladooda amni. ammaanka ayaa waxaa la sheegayaa in maalmihii u dambeeyay uu faraha kasii baxayay, iyadoo ururka al-shabaab ee ka horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. tan iyo markii baneeyay xafiiska Villa Soomaaliya waxaa soo baxay habacsanaan dhanka amniga ah, waxaana cabsi laga qabaa in markaasi saraakiisha amniga ee hore ula shaqeyn jiray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xilka laga qaado. guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelkan waa naga inta.